بسم الله الرحمن الرحيم دمان مسؤولين تكال الدوان مدشن السقوطمي شاليدا تجان كواشنطن دي سي فرجينيا ياغار كده ويل يدلنيرا بين كستو دلنيرا لو ودا بدنيه خاصة حبلها هويوينكا يقود هان بلشنا الشرف تلماشن السقوطمي وحالكم السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفوا إن بقيتها إن أنا ما أنت هلكن. إذن لا تشوفوا دور عشاء صدحية أنت هاد قرن معي أيام ما أنت هودن شرر كشرني أرد بانو كشرني هلكن باللو كشري قرن كالصوماليات ما أنت دون تاي سوكن حدا يسهل كن سوكن كنتي سيدي هرو لوجو مرسين لها لوصة ما تبحين لها ظروفها أدق دلك وكشيرنا لوجا بحن الله. أنتي هل كان فديي وشيء فربضن وأنقرنا يقارق عصبة وأنا ركي لأن يراد وحسين كمدي هي أيها دلك النووي مادة أو يا إبراهيم يا وزير ديدي أو ينهل كان شوكته أو نلاش قيني مركا contribution كلنا وتكل دينا كمان مغردين دلك. sida quruxda badan ee aad u urursantihiin isu kaashanaysaan in aniga oo safar ku imaad halkan iigu wada timaadaan oo hawlihiinii aad ma taqaanay idin sugayay aad ka timaadaan waxay tusaysaa kalgacalka iyo wanaagga dalkiina u haysaan iyo daltabiyada idin haysa anigu qurba joogtana waan ka mid ahaan jiray inkastoo bar hore ka garajuweed gareeyay oo aan dhowr iyo 10 sano hadda ku maqnahay dalkii Kanadadan cirifkiina baan joogi jiray saasan jaaliyada uga mid ahaan jiray waxa laga yaabaa xilliyada qaar inaan hiiraan online iyo meelaha warka ka heli jiray horta dalkiisaan u aaday warba ma dhageysto oo de warkii wad ku dhex jiraysaa iyo duruufihii baad arkaysaa waxaan kaloo aad uga dheregsanahay doorka jaaliyadu ay ka qaadato arrimaha Soomaaliya dhaqan-dhaqaalaha adeegga bulshada kobaca waxtarka iyo daryeelka bulshada inteeda nugul magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida aragteen ee Muqdisho leh ee Hargeysa leh ee Baydhabo leh ee Kismaayo leh ee Garowe leh ee Boosaaso leh waxay ku dhisan yihiin in badani taageerada iyo taakulada ka timaada qurba joogta خاصة هويوينك الصوماليين هل شيء بان هرت إيجيو ملاوا مالين سكول إيو وحبرشة إيو شقاء وحنا ير كي حاجة اللي جايمي إذن كو ذلكي ورصور دمسينا وتصور عركتينها إلا وينا دايرت إن تكو حدان وأيدل كو ده كو حدنا دان قفكو مركو شخصيات لي هاي أو مشو كسو تشيدو يأفكي سجرنا إيو way aragtahay inuu ka go'aa dalkiisa marka waxbarashada iyo aqoonta iyo inta aad la daba joogtaan qaybta dhaqanka iyo dalkana la ogaada anigu 10 sano meelaha jira marmar waan ka yareeyay baan dalka ka dhoofay Hindiyan ku soo ababay Kanadaan aaday inta soo dhan maskaxdeeda waxa ku jirta goorma dalkii ku noqon doonta Ilaahay wuxuu qadaray maalmaha kamida inaan magaalada Muqdisho dib ugu noqdo oo halkii aan Somali Airlines ka raacay anigoon hal qof ka garanayn oo xamar jooga maantana waxaan ka ahay ra'iisul wasaare ku xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya meel kale oo aan sidaas fursadda adeeg bulsho inaan mataqaanay public servant ka noqdo aan ka heli lahaa ma jirto dameeraha qaar sharciga ba ii diidi lahaa oo ina dalka ku dhalato hadda hadii aad sharci ku leedahay himiladaasi inaan ka mid noqdo adeegayaasha oo adeegaya muwaadiniinta Soomaaliyeed way hirgashay duruufo kala duwan baan ku soo shaqeynay laakiin waxaan rabaa bal inaan idin la wadaago 12 sano maxaan u soo joogay dalku halku maraya maxaad ka filan kartaan doorkiina muxuu yahay
maraan maanta ka qayb qaadanayay horta safarkayga halkan aan idinka bilaabe waxaanu u nimi forum caalami ah oo bangiga adduunka uu qabto oo lagaga baaraandego arrimaha la yiraahdo fragility nuglaanshiyo ayaa af Soomaali ku noqonaysa qaramada ka soo kabanaya dagaalka qaranjabka dhaqaale burburka sida kuweenoo kale oo inagu aynu wax iska yeelanay say u soo kabanayaan bal la isweydiinaya dalal fara badan ayaa halka joogay oo aynu isku duruufanahay horta waxaan rabaa inaan idinku bushaareeyo Soomaaliya mana dadaal yara dalalka soo kabanayana hormuud bay ka tahay maalinka anigu aan dalka imanayo barnaamijka diin cafinta ee guushiisa la gaadhay December sanadkii dhamaaday bilow buu ahaa markaas la yeegleelayay hawshiisa iyo hanaanka loo galay marka dalka aan ku soo noqonayo markaasuun baaba cabaar ka hor al-shabaab magaalada Muqdisho laga saaray 10 sano ka hor ciidamada Soomaaliyeed wayna koobnaayeen dhaqaale iyo waxtarna waxay ka sugu jireen ajaanib iyo hay'ado caalamiya biliska Soomaaliyeed baan ka shaqo bilaabay anigu oo General Ahmed Jaamac Muuse wada garanaysaane Allah u naxariistay zaciimkii Soomaaliyeed ayaanu isku tiimahayn biliska Soomaaliyeed marka kharashka la siinayo waxa loo soo marsiin jiray hay'ad la yiraahdo UNMAS iyo UNDP maanta askariga ka tirsan biliska Soomaaliyeed beriga waxay ahaayeen 5,000 oo 20,000 hadda aan waxba ka yarayn electronically by account-kiisa lacagta ugu dhacda xilliga qofku uu ka xishoon jiray inuu shaqaale rayidan noqdo ama uu ka cabsan jiray maantana waa la isku dilaa oo waa loo tartamaa oo waa loo soo kala dheeray isbedelka positive ka ee transformational change kihi ma aha mid markiiba ay indhaha dadku soo qabanayaan dadku waxay badi soo arki og yihiin dib u dhaca iyo waxyeelada xilliga aanu idin la hadlayno aanu ka hadlayno al-shabaab waxay dadka wax ku yeelayn jirtay iridaha hudheelada waaweyn iyo dhismayaasha dawladda hortooda halkaas marmar aaga hore ahaan jiray maantana al-shabaab waxa lagu hor joogaa oo lagu caabinaya oo cudud loogula tagay cad iyo camaara dusheeda wahalka iyo mudug iyo galguduud waxa ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay gacanta ku hayaan oo ay hanteen degmadii Xaradheere la oran jiray oo 15 sano ay al-shabaab gacanta ku haysay 15kii ka horeeyana aan dawladba arag wiil 30 jira ayaa laga yaabaa degmada intuu ku dhashay aanu dawladna arag wax kale oo anfac iyo khayr u keenan aanu arag si loo gaadho caad iyo camaara si gacanta loogu dhigo meesha la yiraahdo Muqokori iyo Teedaan iyo Yasooman iyo Aadan Yabaal iyo Runirgood dhiig iyo naf baa loo huray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan baa wuxuu yiri war cidla laga kaxaystay miya cudud la ii sheegtay margeel laga dhacay al-shabaab xoog bay meelaha ku qabsatay xoogii ayaa laga qabsaday waxa ku naf waayay haliyeeye Soomaaliyeed muwaadiniin aad intii magacoodu idin soo gaaray ka garanaysaan laakiin ay muunad u yihiin in ka fara badan oo hadiye habeen naftooda u horeysa waxaad garanaysaan nabadoon cilmi hagar waxaad garanaysaan taliye Farxaan Qarole waxaad garanaysaan Xasan Tuure waxaad garanaysaan taliye Sulnuuge oo u dambeeyay
kama dhacaan raggii kaaramadha iyo hawdka Ethiopia berigii la ishayay naftooda u horeeyay ee bilad dahabka la siinayay waaba ka sii mudan yihiin ayaan qabaa oo duruuftii ka adag ayay ku shaqeynayaan al-shabaab haddii lagula dagaalami jiray meel la yiraahdo beerta cali mahdi ama meel la yiraahdo xawaadli oo xamar waxba u jirin ama jilib marka iyo gandarsho dusheeda hadda waxa lagula dagaalamaa 500 kilomitir 200 kilomitir meel ka fog hawl fudud ma aha logistically strategically abaabulid bulsho kicin garab istaag bay u baahan tahay kharash bay u baahan tahay waxaad ogeydeen 1991 markii qaranku inaga burburay in Soomaaliya la saaray cunaqabatayn hubka ah waxaan idinku bushaareynaya idina aad ogtihiin cunaqabatayntii in ay iska qaaday dawladda Soomaaliyeed dadaalna ay ku timi waxaan kaloo rabaa inaan idinku bushaareeyo dawladda Soomaaliyeed inay dadaal badan gelisay sidii ay Soomaaliya uga mid noqon lahayd suuqa bariga Afrika waxaynu kaloo qayb ka nahay COMESA waxaynu wada xaajood dhow kula jirnaa World Trade Organization oo suurta gelinaya wankeenii madaxa madooba iyo sisintiiba in loo dhoofiyo caalamka haddana waa loo dhoofiyaa dalal ay ka mid tahay Turkey iyo Carabta qayb ka mid ah waxaan rabaa inaan idinku bushaareeyo haddaad Garowe maanta tagto qolihiina halkan fadhiya ka soo jeeda waxa laamiyay ay leedahay iyo horumarka ka jira ma sawran karaysan baydhaba haddaad tagto kismaayo haddaad tagto barnaamijyo culculus oo infrastructural investment ayaa maanta inoo suurta galay laakiin shalay aan suurta gal ahayn waayo waxay soo mareen hanaanka dawliga government systems bay soo mareen waxaan aynu ku faani jirnay raggiina hore joogay bar dheer projectiyo maxay ahayd mareedley iyo waxa siba xoolo adduunka laga keeno la isku celceliyun bay ahayd ama Saudi ha laga keeno ama Islamic development ha laga keeno ama concessional loans ha lagu helo ama bilateral arrangements ha lagu helo raggi markaa joogay wixii intay keenan baanay jeebka kuma shoobanay bay toos u fuliyeen waa ku amaanan yihiin wadadii oo kale baa haddana la hayaa waxa lagu dala jiraa in wadooyinkii dhaadheeraa dib loo dhiso in economic corridors doolow ka soo bilaabmaysa fair ilaa iyo tan hadda berbere ka jirta ee la yiraahdo berbere corridor garacad hawsha ka socota waad ogtihiin dalaalka dalka ka socda ma yara marka madal horena waan ka sheegay sida aynu u il darannahay uma alaliin horta taa ogaada waad aragtaano dalkan shalay baad timaadeen inkastoo reer Virginia dadka ay ka guunsan yihiin xagga da'da marka la eego qurba joognimada haddana Soomaalidu si sharaf iyo karaamo leh bay uga dhex muuqataa dalkan Mareykanka ah oo ummad oo dhan ay isugu timi sector aydan ku jirin ma jirto idinkoo diintiin iyo dhaqankiin iyo dadnimadiin ilaashanaya bar haddana bulshada ka dhex muuqataa sidaas bay intii dalka joogtana u dalaalaysa xamar markay diyaaraddu kula marto waxa dhismo ka socda wadiyaabaysa laakiin warbaahinta caalamku hal mar oo ay bela dhacdo bay soo tabin ogtahay inta badan ee wanaagsan ee dadka niyadda u dhisaysa ee ku dhiirigelinaysa sidii sheego inoo sheegay inay maal gashato arkamaysan waxaan rabaa inaan kale idin la wadaago dadaal hor leh ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ay ka wada maalgelinta xagga wax soo saarka iyo beeraha shaqo aad weyn baa ka socota waxa in yar naga maqan xaggii aqoontii iyo culumtii adduunka ka jirtay sidii loo soo waaridi lahaa taasina idinkay nagaga maqanta dhalinyaradana waxaad bartaan
inay dalkii ku soo noqdaan oo ay maal gashadaan oo ay aqoontooda iyo aragnimada la yimaadaan haddii aan ku soo durko qaranka marka la yiraahdo maantan ka sheegay waraysi meel laga qaaday waxyaabaha dalka igu celiyay waxa kamid ah markaan jaamacadaha dhiganayay baa marka qaran jab laga hadlayo bay Soomaaliya soo qoraan waxaan u maleeyahay arrinta caadadeedii baa dib celisay marka saa u fadhiisato classkii state failure marka laga hadlayo leeyahay waa Soomaaliya qaran burbura haddii aad rabtaan aragtaan ama waa Soomaaliya ama waa Afghanistan baa leeyahay horta maanta failure kina waynu ka baxnay fragility na waynu ka sii baxaynaa horumar baynu hiigsanaynaa taas aan rabaa inaan dhambalka idin la wadaago laakiin dabarro iyo seetooyin inagu xidhan baa jira dadaalada marka la yiraahdo qaran baa burburay macnaheedu ma aha wadooyinkii iyo dhismayaashii ay African village iyo kamid ahaayeen deegaanadii bangiyada iyo baa burburay ma waxaas waa sibir la isa saaray riba wala dhisi kara private sector ka dhisan karta hal jaamacad ummadaynu lahaan jirna hadda waxa furan 20 jaamacadood inamadii wax ku bartay halkaas Oxford ay hadda ka soo baxaan iyo Harvard iyo hadda yalsanina isbedelka dalka ku yimi laakiin waxa inaga burburay waxa weeye sarayntii sharciga what we have lost is the rule of law wa ta'ad harsanaysan idinku Virginia in hilibgeelna kumeedaan ogeyn sisin iyo macsarna kumeedaan ogeyne iyo Washington waxa idin keenay nabadda ka jirta waxa idin keenay daryeelka aad ku heleysaan shuruucda ay dejisteen inaan leedinku xadgudbin ayaad soo hadsateen oo haddana qaar kale ay meel darbiga la yiraahdo ka soo boodayaan waxa ay hiigsanayaan dhalinyaradeennu oo ah meel degan sharci leh xasiloon aad ka shaqaysan karto meesha ugu habboon lagu abuuri karo waa dalkeena dhexdiisa marka waxaan rabaa inaan idin taxo dhowr shay oo la rabo inaad garab istaagtaan qofka raba inuu Soomaaliya taageero ama Soomaalimadiisa muujiya waa inuu wixii inay Soomaaliya waarto oo ay resilient noqoto oo ay jirto oo bad qabto waa inuu ka shaqeeyo koow waxa uu ah dalkeenu inuu dastuur lahaado dastuurka waa laga doodi karaa waxba la iska weydiin karaa aragtiyaha waa lagu kala duwanaan karaa tan Mareykankaba sidii duruuftay soo martay warugtiin laakiin 2024 inaynu niraahno bilaa dastuurna waa nahay Ethiopia iyo adduunka kale markay dhulka iyaga iyo wax iyaga nagu qabsanaana waxaanu leenahay war dal jiro sharci leh baanu nahay ayaan faraha lana soo gelin isku helimeyn sovereignty waxa la yiraahdaa asiyaada waxay ku qotontaa sharciyad sharcina wuxuu ku soo ururaa dastuur marka dastuurkii Soomaaliya hadda baarlamaanku ka furay cid monopoly ku haysan kartaana ma jirto dalka Soomaaliya la yiraahdo dictatorship xilliga ka hirgalaysana waa la soo dhaafay monopoly of ideas na waa la soo dhaafay waa in qof walba Soomaaliyeed dalka ha joogo dibadda ha joogo uu afkaar ka dhiiban karo sida uu u arko Soomaali inay tahay inay isu doorato masira Mareykanka la isu dooranaya oo barnaamijka la yiraahdo first past the post electoral system baa la qaadanaya mise proportional representation ka ay South Africa isticmaasha la qaadanaya ma presidential baynu noqonaynaa mise parliamentary statuska Muqdisho wata Washington oo kale noqonaysa hadda Washington baa la igu yiri halkan ku jirta hor leh mise ta waxay noqonaysaa Australia iyo Nigeria ka jirta this is not rocket science waa simple questions bulshooyin inaga inala mid ay ka jawaabeen federalism the elephant in the room federalism wax khaasa oo ay ku xuntahayna ma jirto wax khaasa oo ay ku wacantahayna ma jirto waa hanaan maamul oo bulshaweynta adduunka ku dhaqan 30% ay ku hoos nooshahay oo ay ku liibaantay oo ay ku shaqaysato mushkiladaheena idana yeelan kara marka federalismka waa in la akhriyo democratizationka waa in la akhriyo economic policies
هنديا ودل فدرالة ساوث أفريقيا ودل فدرالة أنا ولا بدأ ريسيرش بنكو سمي thesis كيجي هنديا waxay isticmaashaa waxa la yiraahdo first past the post South Africa waxay isticmaashataa waxa la yiraahdo proportional representation haddana intaasoo waxay ku kala duwan yihiin baa jirta haddana labada dal waxa ka jira xisbiyo muddo maamulayay oo awood badan leh dalal kale inta wadaagana friction badan baa ka jirta waxa la rabaa marka Soomaalidu inay isweydiiso war waxaan ma ka doodi karnaa oo wax labadeennaba inoo cuntama ma la iman karnaa ninna wixiisa keligii ma meel marsan kare hadda anagu qolooyinkayaga Soomaaliland ka soo jeeday waaba saasaan idinku sugayno qolooyinkiina koonfurta u badan marka taasaanba isleenahay bal markay saxanto idinna qaybtiina marka halkaas soo dhigan laakiin waxaan dawo u arkaa anigu waxaan ka soo jeedaa magaalada Ceergaabo waa magaalo dhul beereed yeelan karta buurihii badihii wax walba leh hal shay baa ka maqan dawladnimo kaamila waxtarka ay iga sugayaan dadka aan ku metelo siyaasadda hadda xildhibaanka oo kale markaan ahay waxa kaliya u qaban kara qaran Soomaaliyeed anigu uma qaban karo 20 qof oo kale uma qaban karto inta joogta degmadaasina ma qaban karto qaran Soomaaliyeed oo la tartami kara qaramada dhigiisa baa wax u qaban kara qaran baa in deeqa marraba hadalka inaad ku dheereeyay waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado gabadh baa ay weydiisay halkan oo tiri dagaalkii shabaab xaq u maraya dagaalkii shabaab sida madaxweynuhu uu ku dhawaaqay phase 1 wuxuu ahaa in la xoreeyo hirshabelle iyo meesha la yiraahdo galmudug ka bacdina loo soo gudbo webiga wixii xaga ka sii xiga waxaan u maleynayaa diiwaanka taariikhda inay ku jirto in guulo waaweyn laga gaaray arinta haddana dalka wad kala taqaanaane in yaro u kala dhaxaysa meesha la yiraahdo ceelbuur iyo galhareeri iyo cirifyada xaradheere iyo caadi camaara ay nimankii ku hadheen hakad waxa keenay roobabkii abaarihii iyo recalibration aan ku wadnay dagaalka habka loo galay kumanaan kun oo cusub ciidana baa la qoray waxaan idinku bashaareynayaa in nimankii la oran jiray AMISOM ama ATMIS ee 22 kun ahaan jiray in maanta 2 kun hore loo saaray 3 kun la raaciyay 4 dhowr bilood ka bacda la raacin doono sanadka dhamaadkiisana lagu tala jiro mas'uuliyadda inay Soomaali la wareegto but that needs significant investment askarigii Soomaaliyeed maanta kumanaan kun oo askar Soomaaliyeed iyo shaqaale rayida baa dawladda Soomaaliyeed ay kharashkooda bixisaa laakiin waxaad ogaataan kharashkaasi wuxuu kaliya ka soo baxaa magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho waa privileged waa magaalo madaxdii kharashaad badan bay leedahay way ka faa'iida fadhiisinka dawladda ay tahay dawladdu maadaama halka ay fadhido laakiin dawladda Mareykanku kharashka ay adduunka ku haysato kama soo saarto Virginia iyo maxaa la yiraahdaa iyo Washington waxa jira waxa la yiraahdo fiscal federalism waxa jira revenue authority dalkoo dhan ka qaada qof walba Soomaaliyeed oo shaqeeya oo anigu magaaladan ka shaqeeyo kuwad ka timadan ka shaqeeya ayaa la rabaa intuu kharashaad bixiyo dawladda federaalka waxyaabaha qaarna inay defense ka geliso waxyaabaha qaarna adeeg bulsho inta u qoondayso ay u transfer gareyso federal member states halka wali maynaan gaadhin jahli bay naga hortaagan dood siyaasadeed oon cilmi badan ku dhisnayn bay naga hortaagan waxa la rabaa inta miiska la soo fadhiisto in la yiraahdo waxaanu u aragnaa dalka aayihiisu inay sidan iyo sidaa tahay and for you guys or federal system course nol oo reerihiina habeenkii wacay ilaa waynu iska warhaynaa wax bal u sheega waxa u roon laba wada marka idin furana soo gunaanade in dadku ay soo tahriibaan oo badaha ku soo dhamaadaan
iyo in afkaaraha lagu liibaanay ummadaha kale ay ku liibaaneen aad ummadda gaarsiisaan